haddii abaar dhacdo the chances are very high inay macluul isku bedesho, the chances are very high dadku inay dhintaan, the chances are very high deegaanka inuu burburo. Mar kastoo abaar dhacdo waxaa naga dhinta kumanaan kun oo xoolo ah. Mar kastoo abaar dhacdo waxaa baaqada dalaga inuu soo go'o. Haddii abaar dhacdo dadku waa dhintaan, xoolaha waa dhintaan, beeraha ma soo go'aan, and then there's nothing oo la dhoofiyo ma lahan. Dalkan inta in leeg ayuu u nugul yahay dhibaato dhacdo. Every 3 years abaar dhacdo. Every 3 years qof Soomaaliya gaajo u dhinto. It's a very shocking statistics markii runta loo fiiriyo. Imagine dhulka maanta isku haysano oo qabaa'ilka Soomaalida isku xabadayaan deegaano ka tirsan 30 sano 20 sano kadib meel uu noolaan kara maaha. xoolaha ma joogi karna, banaadamka ma joogi karna. Inaan Soomaali ahaano ummad taariikh leh oo ilbaxnimo leh oo geeska Afrika no inaan sii jirno wax khatar ku ah. Waxa waaye climate change khatar ku ah maahan. It's not only marka laga hadlayo climate finance maahan, waa tuugsanayna maaha. It's an issue of justice. Why Soomaali haddii la fiiri maanta ma la helayo, let's mistake maybe 1,000 kun qofood oo Soomaali ah oo climate smart agriculture expert ku haddii maanta raadi I don't think la soo helayo. Why hadduu roob da'o waddooyinkeen waa ba'ayaan? Why roobka inuu waddooyinka baabi'iyo ma ahayn. dadka badankood climate crisis waxay u aaminsan yihiin inay tahay wax oo qadar ee bis, yani qadartu way jirtaa, but climate change is happening because of man-made crisis. magacayga waxaa la yidhahdaa Maxamed Cukaash, waxaan ka socdaa jaamacadda Simad, waxaan agaasimo ka ahay macadka cilmi baarista ee loo yaqaano macadka cimilada deegaanka jaamacadda. dabcan dad khubaraha horteeda hadlay, I'm wondering waxaan ku dari lahaa prestationkeyga in badan oo ka mid ah iyo kooda waa iskaga dhow yahay. In general waxaan rabaa high level overview inaad ka siiyo arrinta halka maanta u joogno ku saabsan isbeddelka cimilada, siduu dalkeenu u saameeyaa sectors kala duwan, kadibna talooyin aan isla wadaagno ku aadan maxaan qaban karnaa, what can be our role as a dhalinyaro. guud ahaan Soomaaliya horna waa loo sheegay waxay ka mid tahay dalalka aadka ugu nugul dhibaatooyinka isbeddelka cimilada. adduunka waxaa la fiiriyaa laba dimension markii dal la qiimeynayo arrinta isbeddelka cimilada. Marka koowaad vulnerability index, dalkan inta in leeg ayuu u nugul yahay dhibaato inay dhacdo. tusaale ahaan inay abaar dhacdo, abaartu ay soo laalaabato, ama daad dhaco, ama musiibo kale oo isbeddel cimilada inay dhacdo. saa ogsoontihiin 2 sano ilaa 3 sano marba abaara dhacdo. 2020 labadii abaara dhacday, 2023 floods dhaceen. hadda aan ku jirno waxaa laga digaa abaar inay dhacaan, oo roobkii jiilaalka waa baaqaday, go'ana inuu baaqan doono ayaa laga yaabaa. marka that makes Somalia waddan aad ugu nugul dhibaatada isbeddelka cimilada. sidoo kale waxaa la fiiriyaa adaptation capacity waxaa la lahaa haddii dhibaato dhacdo intee in leeg ayaa la tacaali karnaa. tusaalahan haddii abaar dhacdo the chances are very high inay macluul isku bedesho, the chances are very high dadku inay dhintaan, the chances are very high deegaanka inuu burburo. mar kastoo abaar dhacdo waxaa naga dhinta kumanaan kun oo xoolo ah. mar kastoo abaar dhacdo waxaa baaqada dalaga inuu soo go'o. maxaa laga wadaa in a real sense? haddii abaar dhacdo dadku waa dhintaan, xoolaha waa dhintaan, beeraha ma soo go'aan, and then there's nothing oo la dhoofiyo ma lahan. haddaan waxba la dhoofin dhaqaalaha u badan Soomaaliya xagga ku soo galaa wax soo saarka beeraha Soomaaliya iyo xoolaha. That is the only thing we trade to the world. wax u muhiimsan u waaweyn. Everything else oo dalkan laga isticmaalo banaanka laga keenaa. so waddan qani manin wax kasta soo gadan karno. There has to be something adduunka u ganacsi geysano. So climate crisis ku yahay marka haddii abaar dhacdo wax dhan ma jiraan. which means majority of dadkeena oo baadiyaha ku nool duruufaas adag aa soo wajahaya. dadka u badan oo Soomaaliyeed xagga ku nool yihiin baadiyaha ku nool yihiin, waan iyagaan laf dhabar u ah wax soo saarka dhaqaalaha dalkan. dadka u badan oo dhibano u ahan iyaga waa markii abaar dhacdo. That's why inta abaar hadda ka sheekeynaya dhacay idinka si toos idama saameynin annaga, because magaalooyina ku nool laha infrastructure-ka iyo facilities-ka ay sadatay. laakiin 70% of our people hooyooyin ama odayaal ama dhalinyaro oo baadiya ku nool ah
ma haystaan roobkaas hadduusan jirin waxa ma tacban karaan haddii wax la tacban karin noloshana waa iska adkaanaysaa waxaa laga hadlaa hadday global warming and climate change waxaa sababa greenhouse emissions khiyaca wasaqada hawada lagu sii daaya ama GHG loo yaqaano GHG-ga wadamada ku kala badan yihiin tusaale ahaan Soomaaliya wadan iska maskiin ah oo faqri ah oo ka mid ah wadamada least developed country loo yaqaano warshado badan ma qabno warshadaha iyagaa sababta u weyn ah in wasaqowga hawada uu ziyaado so wasaqowgeen wuxuu ka imaadaa eerboorada yar aan leenahay oo diyaarada ka duulaan baabuurta yar iyo shirkadaha korontada oo electrification u isticmaalo iyaga marka aad u yar yahay waxaa lagu sheegaa from 0.01 to 0.3% lagu sheegaa marka qaarkood wax oo xitaa la tirin karmaa in terms of number haddii xitaa la fiiriyo Africa oo ase qaarad oo anaga ka tirsannahay is less than 5% marka loo fiiriyo dalalka Europe iyo China iyo India iyo Brazil oo dalalka dhaqaalahooda soo kabacay ama u waaweyn u yahay waxaa jira group of countries loo yaqaan G20 maqasheen waa 20 ka dhaqaale adduunka ugu waaweyn Africa waxaa kaga jirta kaliya South Africa because of the size of their economy qaada laakiin waxaa ku jira India, Brazil, Russia iyo those other big countries aad taqaaniin oo dhan waxay mas'uul ka yihiin almost 80% of global emissionska iyagaa sabab u ah in adduunka u kulaado iyagaa sabab u ah in roobka inuu yaraado iyagaa sabab u ah every problem majority problem iyaga qaadanaya oo dhibaato deegaan aan ka sheekeynan that's why ayaan ugu shaqeynaysaa inay cadaalad Soomaali u raadiso oo dhan idinkaa sababay mushkiladan waa inaad bixisaan kharashkii hooyada beeraleyda ama xoolaha dhaqatada Soomaaliya lagu taageeri lahaa maahan it's not only marka laga hadlayo climate finance maahan waa tuugsanina maaha it's an issue of justice why sidoo kale 2022 waxaa ka sheekeeyay abaartii ugu dheereed inay dhacday Soomaaliya in 40 years waxaa jira dokumenti ee bangiga adduunku soo saaray oo ka hadlaya khataraha cimilada Soomaaliya 2091 ilaa hadda almost waxaa dhacday in ka badan 19 abaarada Soomaaliya ka dhacday imagine which means waxaa waaye every 3 years abaara dhacdo every 3 years qof Soomaaliya gaajo u dhinto it's a very shocking statistics markii runta loo fiiriyo 2023 haddaa xasuutiin El Nino dhacdo loo yaqaan dhacday oo daadad xoog leh oo deegaano badan aad u saameeyeen xitaa telefoonka markaa wacdid waxaa ku jirta fariin digniin ah in roob xoog leh soo socdaan dadku ka guuraan meelaha wabiyada u dhow ama buuraha hoostooda xoolaha GDP-ga ama dhaqaalaha dalka 70% wuxuu ku tiirsan yahay wax soo saarka oo primary production kan xoolaha iyo beeraha and that means aad ay ugu nugul yihiin haddii masiibo dhacdo inay iyaguna si negative u saamayso that is marka general overview of xaaladda guud ee isbedelka cimilada dalka climate marka waay maqalkiisa idinku badan yahay fadaa wuxuu dhahay climate ma dhawa maqle aadan u maqalna why because climate change waxaa loo yaqaanaa threat multiplier haddii climate dhacdo wax kastoo kale oo problem oo jirin xitaa waxay noqdaan wax oo feasible ah threat multiplier mushkil kastoo jirto way kaga sii dari haddii climate change dhacdo tusaale haddii climate dhacdo ama say lasi abaardeed haddii dhacdo maxaa dhacayo waxaa ziyaadaya dadka ku nool faqriga poverty line ku ziyaada statistically Soomaalida ku nool faqriga meeqay gaarayaan mataqaaneen number ahaan ama percentage how many people oo Soomaali ah ku nool faqri waxaa laga wadaa in ka yar qofki inuu maalintii soo gasho wax oo $3 ama $5 ka yar tusaalahan $5 wax ku jirto guriga kadiisa biyaha korontada cunada transportation everything qof xamar meeqay isticmaalaan if you count from every expense waxaa laga yaabaa $10 ilaa $15 ku baxdo even haddaa xisaabiso sharkaaga oo guriga kadiis like imagine majority of dadka Soomaalida 70% loo qiyaasa waxay ku nool yihiin under poverty line so the more a climate crisis dhacdo the more those people ay faqri ku sii jiraan like hadduu roob da'o oo aaran iyo barwaaqo timaado dadka xoolaha ay dhoofiyaan oo lacag fiican kasoo xarooto maxaa dhacaya reerkaas wiilkii gabadh iskuulna u diraan guri fiican inay dhistaan korontadana iska bixin karaan caafimaadkana iska bixin karaan noloshooda inay barwaaqo galayso but hadday roob ka imaanin ama khilaafaad dhaco oo productivity uu yaraado maxaa dhacay cagsigeeda la aadaa
waxyaabaha kale climate ku soo waxa kamid ah conflicts oo kala sii dara threat multiplier waxa kamid ah tusaale ahaan conflicts climate waxa jirta concept climate peace and security sida isula xiriiraan how many of you are economics by show of hands economics okay only 2 people yeah okay economics waxa jirta theory loo yaqaano cost loo yaqaan scarcity yeah resources waa scarce waa limit waa markasta baahida bini'aadamka maxaa waaye waa unlimited somaa so the whole point of economics maxaa waaye resourceska oo yar iyo baahida insaanku aad u badan sidee la isku maajgareynaa ha noqoto time ha noqoto financial resource ha noqoto land ha noqoto any kind of resources but by naturally biyaha oo xoolaha ay daaqaan iyo cawska wax u muhiimsan ama ugu badan oo khilaafaadka baadiyaha ka dhac sabab waaye hadduu familkan uu leeyahay 500 oo lo iyo 100 halaad geel ah subaxii waxay rabaan inay kaxeeyaan oo daaqsin iyo biyo soo helaan so haddii marka access to water uu yar yahay ama uu yaraado because of climate change maxaa dhacaya marka isqabsi inuu yimaado soma so marka climate crisis dhacdo those conflicts aad u sarukac badan ka yimaado marka that is one another aspect of climate ku yahay threat multiplier and on top of that institution la marka desin jirin ama capacity uu yar yahay ama resource loo tagal aysan haysan maxaa dhibaatooyinkaas inaan si dhaqsi wax looga qaban tusaale markay baadiyaha khilaafaad oo kale ka dhacaan wiilashii gabdhihii loogu talagalay inay beer dagaal isdagaalaan oo qoryo qaataan ama qalab qaataan yaa laga rabaa inuu ka shaqeeyo state institutions capacity loo malayn deegaan kasta ma joogaan meelahaas waxaa ka jiro makaabis badan ka jiro iyo sidoo kale qaabka u xalina khilaafaadka way ku cusub tahay arrinta climateka khilaafaadka badankooda waagi hore waxaan jireen qabiil oo isku dagaalay kursi iyo deegaan like hadda it's becoming more because of droughts iyo floods imaanaya dartooda natural resources hadda la isku qabsadaa so the more climate shocks ay dhacaan oo la isku qabsan land and water waxaa dhacayso dadku inay barakacaan resiliencyga inuu yaraado resilience maxaa waaye inaa awood u leena inaa iska caabino hadday dhibaato dhacdo tusaalahaan droughtka marka laga hadlayo there's a levels ay ka leedahay in 2022 hadda aan sheekeynayni oo abaarta u dheer Soomaaliya ka dhacday that same year Europe waxaa ka dhacday abaara ka dhacday Europe okay Europe dadka marka abaar dhacdo dadku gaajo ma dhintaan there's no qof European oo white oo Sweden ama Netherlands soo jeedo because of meteorological drought waxa la dhacday roobka yaraad why because they have in resilience capacity awoodooda iska caabinta ayaa sare u qaadsan ama jirto maxaa laga wadaa ka shaqeynaa dadku inay badbaadiyaan ama cunno helaan qayaan isku filayin economically socially institutionally kulli way xoogayeen laakiin dalad sida Soomaaliya oo kale markaa fiirisid keesku ka duwan yahay markaas aan ku qiimeynayno conflicts climateka one of the findings waxaa ka mid ah haddii temperature-ku sare kaco maxaa dhacaya agricultural production hoos u dhacaa and temperature inuu sare kaco one of the impacts of climate change ka mid tahay hadduu roob jirin temperature u sare kaco waxaa laga yaabaa meelo qaarkood yani inay iska tahay wax beerashada nolosha caadiga inaysan kasii jirin statistical haddaad fiirisid by 2050 wax ka dambeeya waxaa jira warbixino oo regional oo Soomaaliya ka mid tahay meelaha laga sameeyey by 2050 aad uma dheera dhaqsan kadib waa 2050 hadda waxaa ku dhinaca 2026 less than 25 years kadib waa so 25 years kadib deegaan qaarkood waxaa jira oo inhabitable oo adag tahay in lagu noolaado because of kuleelka dartiisa iyo biyo la'aanta imagine dhulka maanta isku haysano oo qabaa'ilka Soomaalida isku xabadayaan deegaano ka tirsan 50 sano 20 sano kadib meel uu noolaan kara maaha xoolaha ma joogi karna banaadamka ma joogi karo because of
يعني environmental issues darteed environmental degradation awgeeda marka temperature-kana aad uu kacoyaa and one of the things we do as a country dhirta aad u jiraan haddii qofka shaqeyn dhirta in la jaro معناها مشكلة اسبتك عملها 100% ما لها ودمرها there's a percentage we do have because of our lifestyle because of our activities أو كم أنت رجعتها استعمالك بلاستيكس كا واستعمالك all those things waxyaabo badan oo dalka laga dhoofiyo waxaa ka mid ah banana sorghum maize all of them waxaa ku dhacay decline for the last 40 years marka la fiiriyo since 1990 ilaa hadda decline badan ku socday exportkooda because of climate iyo conflicts now those are factors iyo waxyaabo markaa kor laga yaabaa inaysan idin farx gelin markaa maqashaan because of those are realities maxaa hadda laga shaqeynaya oo socdo ase dhalinyaro ay tahay inay ogaataan number 2 2022 waxaa la sameeyay wasaaradda isbeddelka cimilada that is a very big progress because an institution or mandate ku siiya inuu coordinate gareeyo all these efforts samaysan waxaa kaloo jiro shuruucda sharci ugu muhiimsan shuruucda waxaa ka mid ah sharci ilaalinta deegaanka oo hadda fulintiisa un tahay wax issue laakiin sharci ahaan ugu jira sharcigaas wuxuu mamnuuca plasticska hadda meesha noo yaala dhan oo biyaan ku caawiyno waxaa mamnuuca waxaa ka mid ah single use plasticska qaabka loo isticmaalo qaabka loo maareyn lahaabo ay noqdaan qaab sustainable waxyaaba kale oo muhiimka dalku uu leeyahay oo raba inaan soo akhrisiin waxaa ka mid ah sharciga yareynta diqowga hawada ama NDCs waxa loo yaqaan National Determinant Contribution wuxuu ka tirsan yahay heshiis caana loo yaqaan heshiiska Paris ma maqasheen Paris Agreement yes so Paris Agreement 2015 dalalka dhan Paris isku tagay heshiiskaas ka soo baxay heshiiskaas markuu wuxuu ka hadlaa sidee loo yareynaa wasaqowga hawada sidee wadamada ula falgalin lahayn climate change that agreement inaa Soomaaliya qayb ka tirsan ee tarteeda waxaa sameysmay NDC marka waa documenti qaran oo sheegaya maxaa la sameynaa every sector soodan agriculture livestock infrastructure water any sector oo nolosha qof bini'aadamka saameynayso maxaa laga qabanaa and how do we invest xitaa costina loo sameeyey sector kasta maxaa laga shaqeynaa marka waa documenti public available qortin NDC Soomaaliya waa leysin waxaa kaloo muhiim ah oo dalku uu leeyahay national adaptation plan climate issues markii wax laga qabanayo laba approach xoog la saaraa mid waxa la mitigation mid kan maxaa la adaptation if you address climate there's only two approaches adaptation and mitigation waxa waaye diqowga ama wasaqowga hawada ina yareeyno what is that wasaqowga hawada greenhouse emissions carbonka kamid ah saalaan methane iyo hawooyinkaas in la yareeyo sidee loo yareynaa wadamada dabcan oo aad u wasaqeeyay hawada ay u taala shaqaas badankeed tusaale haddii raydka wasaqowga hawada aad ugu badan yahay dal hebel waxaa laga rabaa inay isticmaalaan renewable energy dhir badan beeraan aad u yareeyaan green sources inay isticmaalaan like for the case of annaga oo kale focuskeena waxaa waye adaptation not mitigation there's a percentage of mitigation yes like the major focus waxaa waye adaptation waxaa waye sidee ula noolaanaynaa isbeddelka cimilada maaha mushkilo oo zuuleysa maaha for the next 100 ma zuuleysa si dhaqso ma zuuleysa it's not like inay malaria ku dhacdo oo daawo qaadata ka bogsanaysa oo kale maaha oo beri waa laga baraa it's negative no it's gonna be there laakiin maxaa sameynaynaa temperature-ka will increase 2026 siduu yahay 2030 it's going to increase every year but how do we live with that reality su'aalahan temperature hadduu gaaro 45 degrees centigrade dalaga aan beerno mar qaarkood waxaa laga yaabaa inuu ku bixi karin kula gaarsiin 45 hooyada uurka leh haddii meesha aad u kulushahay oo 45 ama 50 u gaaray ilmahaas inuu korina laga yaabo caloosha korin maxaa la sameynaa so how do we adapt with those realities for example roobku wuu yaraanaa ama roobka xaddigiisa waxaa laga yaabaa roobka inuu iska maqnaado muddo hal mar inuu yimaado roob loogu tago 2 bilood inuu hal isbuuc ku dao maxaa la sameynaa infrastructure-kan qaabkee u dhisaynaa how do we manage our water all those things marka waxaa la adaptation sidee ula qabsanaynaa la qabsigaas marka siduu leeyahay loo yaqaano national adaptation plan documenti waaye is accessible inaan akhrino oo fahanna nala ka rabaa
because this is not wax oo mustaqbalka maaha, it's about what's happening now. hadda maxaa sameynaynaa waaye. waxaa la sameeyey national climate fund, sanduuq oo lacag la sameeyey, sanduuq oo lacagaha Soomaaliya lagu soo shubay climate fund. waxaa kaloo jirta muhiima national threat assessment report aa jiro dowladda Soomaaliya soo saarto. khataraha ugu waaweyn ee Soomaaliya wajahaysa maxaa waaye? Soomaaliya as a country yaa khatar ku ah. one of them waxaa ka mid ah climate change. for the first time oo documentigaas uu soo baxay 2024 marka which means waxaa waaye inaan Soomaali ahaano ummad taariikh leh oo ilbaxnimo leh oo geeska Afrika no inaan sii jirno. wax khatar ku ah waxaa waaye climate change khatar ku ah. hadduu climate-ka impactkiisa uu sii bato, dadku waa sii dhimanayaan, deegaanka wuu sii burburaa, xoolaha waa sii baabaa. will be a history wax laga sheekeeya noqonaynaa bas. will not be relevant to this region of world. that's why marka it's a existential threat alla jiritaanka ummadeed uu khatar ku yahay. dhalinyarada marka maxaa laga rabaa inay sameeyaan oo aniga ku jiro? maxaa nala ka rabaa inaan sameyno? dabcan shaqo badan loo taalo. marka la yidhaahdo majority of Soomaalida waa dhalinyaro, statistically waxaa la qiyaastii 70%. waxaa ka yarnaa 35 sana ka yarnaa. that's a huge number, which means Somalia dadka oo 35 ka weyn way yaryihiin, minority waa eegdan. they are 20%, 25%. majority waxaa waaye very youth. those youth group haddii si fiican loo mobilize gareeyo, aqoontooda fiican, habfirkooda u sareeyo, ee engaged ku yihiin shaqooyinkan, wanaag badana Soomaaliya u maanaya. like haddii disorganized yihiin, fahamkooda, aqoontooda, wacyigooda uu liito, ee arrintan serious u qaadanin, there's nothing oo mustaqbalka lahay oo noo haraama jiri doonto. so this is not maahan it's not a simple statement oo si fudud loo dhigi karmaa waxaad dhigtay. based on fact, based on science, data. so we need to think si oo ka duwan sidii hore. qabkan qayb ka ahaano planning and reduction. khataraha keenan sidee qayb u noqon karnaa? dabcan afkaar isweydaarsanaysa is one of them. it's a very good ka maqan waa kaga badbaadintii inaad ogaato wax laga sheeg. waxaa ka mid ah early warning systems and climate information wax loo yaqaanayo. hadda diino ma ogtiin in abaar laga cabsanayo oo roobkii u baaqaday. that information ra'yi qof uu leeyahay maaha. it's early warning system. qalab satellite data iyadoo la isticmaalaya ayaa waxaa lagu sameynaya prediction. roobabkii la filaya ma imaanayaan, ma baaqadeen, hadday imaanayaan intuu ka daa. hadda roobabku imaan doonaan waxay qiyaastii in koonfurta ii doona dan intii la filayo. waqooyiga Soomaaliya roobka ay ku banaan doonaan. roobka imaan doona waxaa laga cabsi qabaa inuu noqdo mid xaddigiisa. that is waxaa la early warning. waxyaaba kaloo muhiimka ka shaqeyn karna waxaa ka mid ah climate smart livelihoods. how many of you are beerley ah? yaa beerley inta fadhiya? hal qof ismiya? okay, majority dadkeena waa beerley. soo mogidi caay ma xumaan ma ya kulligiin reer xamaratiin ya. okay, beriyaha xataa dadka xamar jooga waxay samaysteen greenhouse farming. daynile iyo magaalada banaanka beeraha ku yaalaan. so basically the way aan wax u beerno hadda as a dal waa qaabka wax loo beeran jiray waagii wax beerashada markii la bilaabaya. mataqaan taariikh historiga wax markii la beeranaya historically markii la bilaabaya yaamba wax loo beeran jiray. still that way wax ku beeranaa, which means it's a very traditional and small scale farming ama subsistence farming loo yaqaanaa. today because of climate change we require inaad technology isticmaalno, qalab casri isticmaalno loo yaqaano climate smart farming ama agriculture. that is something u baahan inaad barano waayo. Soomaaliya haddii la fiiri maanta ma la helayo let's say let me take maybe 1,000 qofood oo Soomaali ah
oo climate smart agriculture expert ku haddii maanta la raadiyo I don't think lasoo helayo and 70% dhaqaalaheena wuxuu ku tiirsan yahay agriculture waxaa ugu waaweyn haysan waxaa ka mid ah urban land fiican waxbarashada and then the knowledge in that sector waan u yartahay so it's a paradox marka qaarkood so that's why we need to engage in those activities waxyaaba kaloo muhiimka waxaa ka mid ah deegaankeena inaan ku sameyno restoration aan u ballaangeyno qaab oo resilient inuu shaqeysto tusaale ahaan dhulka geedaha la beerayo oo kale flood protectionka drainageka waayo hadduu roob da'o waddooyinkeena waa ba'ayaan waayo roobka inuu waddooyinka baabi'iyo ma ahayn roobka soo da'o waddada in caadi aataa loo baahnaa waayo u dhaceen because the way we plan is not resilient ma and something wax badan laga bedeli karo sidoo kale dhalinyarada waxaa lagu sheegaa inay yihiin hal abuur inay ku badan yihiin dhalinyarada than elder people so green entrepreneurship iyo climate innovation in dhalinyaro engaged ku ahaadaan through technology or business small businesses get sort of the election one of them but there are so many ways of karno to do innovation in this sector and lastly aqoonti iyo capacity inaan raadino aan lahaano wax barano oo advocacy iyo activism inaan sameyno waxaa qiyaasaa qaarkiin inaad ka socotiin ururo dhalinyaro oo climate advocacy sameeyo oo dadka wacyigeliyo oo dadka wax baro marka and that is meesha shaqo badan because dadka badankood mara waxaa jirta survey aan sameynay dadka badankood climate crisis waxay aaminsan yihiin inay tahay wax oo qadar ee bas yani qadartu way jirtaa but climate change is happening because of man-made crisis it's a man-made crisis bani aadamkaas and there's a data of 100 years to prove marka we need advocacy-ga iyo aqoonta dhalinyaro u leeyihin in sare loo qaado what are the main takeaways for this presentation climate conflict xiriira ka dhexeeyo and the more climate crisis dhaco the more people can ay noqdaan poverty line ay balaartaan sidoo kale conflict inay dhacaan which means waxaa waaye climate iyo conflict waxay khatar ku yihiin jiritaanka Soomaaliya therefore we need to do something about it in climate crisis aan xalino macnaheedu waxaa waaye we are doing business peace resilience nabadgelyo iyo xasilooni aan shaqeynayna sidoo kale waxaa laga wadaa economic resilience aan shaqeynayna oo ah in wax soo saarkeena uu sii jiro dadku aysan noqonin shaqo la'aan export inaan sameyno lacag badan oo Soomaaliya aan soo celino marka aad ama santiin any shaqo aad qabanaysiin in this sector fikira it's something for now and for the future for yourself and for your families it is not a lofty word maahan oo ajnabi ka imaada maaha it's a Somali issue it's a real danger oo baahna inaan si wada jir wax ugu qaban aad ama santiin hadda jira wax su'aalo aan qaadayo haddii roobkii la waayo qofkii waxa weeye baadiyaha joogay ama miyiga joogay waxa meesha ka baxaya wixii uu manaafacaadsanay nolosha miyiga iyo magaaladuna way isku xidhantay waayo miyiga waxaynu inooga yimaado caano cad maalin kastana dadkeenu u baahan bulshadani waxay ku tiirsantahay waa roob xaaladdeena roobkuna haddii wax iska bedelaan muddooyinka ugu dambeeyey marmarka qaar waxaa dhacda roobkii la filanayey in milimeterkiisu yaraado Soomaalida wax tiraa daawanayo dalkaagii waxa ugu yar in adigu markaad cagadir sidaanad wadada ku toorin dhammaan martinsharafta kala duwan ee dhalinyarto badan ee programkan Balqiis iyo Conrad ay soo qaban qaabiyeen ka soo qayb gashay waan salaamayaa sida mawduucu ahaa in arrimahan isbedelka cimilada iyo baldoorka dhalinyartu ku leeyihiin iyo bal inay fahan wanaagsan ka qaataan iyo sidoo kale hay'adaha dawliga ee qaranka u shaqeeya halkay marayaan maxay leeyihiin oo qofku inuu ogaado waxa waaqiciga iyo xaaladda dhabta ah ee dalkiisu taagan yahay waa mar kasta oo waxa way ficilaadka uu sameynaya ana wax kaga qaban karayo arrimaha isbedelka cimilada iyo amniga iyo waxa soo dhan isquseeya aniga baristashkaygu xoog u xusaari doonaa 3 qaybood waxaan ku bilaabi doonaa su'aal yar oo kooban aan doonayo hal gabadh iyo hal wiil inay si degdeg ah uga yar jawaabaan marka la yiraahdo isbedel cimilo maxaa adiga maskaxdaada ku soo dhaca sidee maskaxdaada maxaa saameeya isbedel cimilo hadii la sheego waxa ugu horeeya maskaxdaada ku soo dhaca maxay
laba qof oo degdeg ah yar baahan isbedel markii oo maqlo climate change waxay u soo dhaceen abaar ama barwaaqo ama cimiladu isbedesho laakiin sidoo kale had maarsaa soo socota kuleelaa sugeynaa marka isbedelkaasay kusoo labadiina su'aalood waxaan jawaabtiina ka dheehanayaa qof mar wuxuu yidhi abaar maskaxdeeda wax ugu weyn kusoo dhacdaa waana xaaladda iminka dalkeenna ku jiro laga soo bilaabo sanadka dhoweyd oo guga xilli roobaadkan helno ka mid ah oo roob aad u yar marka milimitirka laga hadlayan helnay iyo dayrtii la waayey gebigeediba taas markaa waxay soo dedejisay xaaladda abaareed ee baahsan ee dalkoo dhan ka jirta waayo awal abaartu waxay u dhici jirtay laga soo bilaabo 1950s 10kii sanaba mar frequency-ga abaar ku dhacdaa 10kii sanaba mar bay isu jireen wixii ka dambeeyay 1995 xaaladda abaartu waxay 5tii sanaba mar laga soo bilaabo 2011kii ilaa imika ku jirno mararka qaar 2 sano isku xigta oo 2011 iyo 2020 iyo xaaladda imika ku jirnaa waata keenaysa in abaar marna waxaan ka cabanaa xaalad abaareed marna waxaan ka cabanaa xaalad fatahaad iyo daad sawirkaaga ka muuqda waa mid ka mid a dhibaatooyinka abaaruhu keeneen waayo dadkeenu sin ognahay xaaladooda dhaqandhaqaale waxay ku tiirsan tahay xoolaha nool iyo beeraha livelihoodkeenu ugu weyn ee bulshadeenu ku tiirsan tahay waana laba u ah keliyaata ku xidhan roobka haddii roobkii la waayo qofkii waxa weeye baadiyaha joogay ama miyiga joogay waxaa meesha ka baxaya wixii uu manaaficadsanayay nolosha miyiga iyo magaaladuna waa isku xidhantay waayo miyiga waxaynu inooga yimaado caano cad maalin kastana dadkeenu u baahan taas marka waxay keentay markuu qofka xaaladii abaareed ee keento oo qofkii beertiisii ka ba'do ama xoolihii meesha ka baxaan in dadku waxa weeye climate mobility rural to urban migration magaalooyinkii waaweynaa iminka baydhaba iyo magaalooyinkeena waaweyn ee dalkoo dhan meel kasta waxaa arkaysaa dadkii oo kasoo barakacay deegaanadii loogu talagalay kadibna yimid waayo xaaladdu hadday markaa taasi ay ka baxda nolosheenni isku tiirsanayd nolosheenno meesha way ka baxaysaa marka laga hadlayo dhaqaalaha dalkuna wuxuu ku xidhan yahay GDP-geena ama dhaqaalaheennu waa xoolaha nool iyo dhoofintooda taasina markaa u xaqiiqay wixii ugu talagalnay Climate change? Some people still think it's a myth. The Earth's climate has always changed. There's not much we can do. Human beings are not the cause. Not me, not you. The sun flares are responsible. It's still cold, isn't it? So why are we still talking about global warming? It's a myth, they say. Carbon dioxide? You don't know what that is? Plants need it. Renewable energy, it's just a little business venture. And in any case, it only works when it's not a lobby. Food shortage? Oh, come on. muuqaalka yarka waxaan ka bixi doonaa arrimaha isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka Afrika haysta iyo dalkeenaba si guud Soomaaliya marka laga hadlayo Soomaaliya waxay ku jirtaa dalka labaad ee ugu nugul arrimaha isbeddelka cimilada marka rankinka laga hadlayo qodobka muhiimka waxa weeye bulshadani waxay ku tiirsan tahay waa roob xaaladdeena roobkuna haddii wax iska beddelaan muddooyinka ugu dambeeyey marmarka qaar waxaa dhacda roobkii la filanayey in milimitirkiisu yaraado mararka qaarna waxaa dhacdaa xaddigii loogu talagalay roobku inuu ku da'o 3 bilood tusaale ahaan guga in within 10 days milimitirkii loogu talagalay ku helo qofka beeraleyda muxuu qabtaa laakiin markuu roobku si teelteela waqtigii loogu talagalay bisha 3 March oo dabeeqadeeda bilowmo qofku wuxuu ku xisaabtamaa beeraleyda balowga inuu waxa weeye abuurkii diyaarsado saacadii diyaarsado si wax soo saarkoodii qayb uga noqdo dhul daaqsimeedkeena nolosheena qaybta ka marka taas waxay keentay in nolosheenii dadku ay reer guuraagii ay noqdaan dad IDPs oo barakaca xaaladda imika marka laga hadlo 4.61 million ayaa waxay ku jiraan food insecure oo xaalad walibana aad u adag oo bishii labaad bay marana bishii saddexaadna hadalkeeda badda dadaallo fara badan oo dowladdu hay'adda u qaabilsan arrimahan khataraha iyo sodma ay wado iyo sidoo kale way jiraan laakiin weli waxaad dareeminaa in gaabis fara badan ku jiro marka laga hadlayo 90% dhulkeennu waa dhul saxaraweeka aan xaaladdeena dhaqandhaqaale maadaama ay ku tiirsanayd xoolaha iyo beeraha dadkii markii livelihoodka waaweyeen xaaluf ba'an baa ku socda saxarow haddaan markaa xaaladdeennii aynaan bedelin caqabadda ku socda 3 million IDPs aan meel kale ka iman oo barakac bulsho dhexdeenna ah baa isaguna meesha jira dadkeenu markay sheegayaan xaaladdeena dhaqandhaqaale waxay ku tiirsan tahay beeraha iyo xoolaha
badda dhan 3,300 in leenahay maxaan ka manaafacasanaa livelihood change bay ahayd inaynu u guurno arrimaha climate security contextka marka droughtka oo abaar laga hadlayo daadadka iyo fatahaadaha laga hadlayo taas waxay keentay in dadkeennii ay xaaladoodii dhaqandhaqaali noloshoodii ay meel hoose gaadho haddiiba tusaale yar dadku markay iminka xaaladi timaado waxay ku tiirsan waa baad iyo biyo markay gabaabsi noqdaan ama meesha ka baxaan waa ta keenaysa ama driverska muhiimka ah ee xoojinaya dedejinaya in colaad ama dhibaato bulsho dhexdeed deegaanada ay ka yimaadaan taasina waxay keenaysaa resourcekii markuu yaraado waay biyihii dadka ku filnaa ee la wada cabayay meesha marka ka baxaan daaqii xooluhu manaaficsan marka meesha ka baxo waxay keenaysaa iyadana in conflict yimaado sida aan sheegay markii horena 80% nolosheenu waxay ku tiirsan tahay livelihoodka aan sheegnay xoolaha iyo beeraha xalalka muhiimka ee isbeddelka cimilada laga qabanaya maxay yihiin marka la joogo Afrika oo dalalka Afrika oo dhan 4% ku dhow bay contribute garayaan arrimahan dikhowga hawada laakiin maxay noo banaan inaga adaptation oo ah waxa ugu weyn xoogga saarayno nuglaanshaheena yaraynaya adkeysiga bulshadeena dhamaystiraya oo dhanka biyaha institutional priorities institutionada shaqada lahaa in la xoojiyo tusaale ahaan dowladda markay timid waxa la sameeyey wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada oo institution muhiim u ahaa qaranka ah meel fiican imka dadaaladeeda waxa weeye muddo yar jirtay siyaasadihii lagu talagalay qorshayaashii lagu talagalay dhan walba aad moodaysa meel fiican maanta waxa weeye taagan tahay keentayna in dunida ay nagu xidho oo ah in lacagaha iyo kharashaadka lagu talagalay arrimaha climate laftiisa marka institutional prioritieskaagu mar kastoo la xoojiyo taasina waxay keenaysaa in arrimaha sustainable developmentka oo ah ahdaafta horumarka waara laftooda la balance gareeyo qodobka muhiimka waxa weeye siyaasadaha lagu talagalay arrimaha isbeddelka cimilada in la xoojiyo iyo sidoo kale isbeddelka cimilada inagu 0.019 oo wax aad u yar bayn ku tirbiid garayna haddana dhibaatada inaga inagu dhacdaa in iyada lafteeda cadaalad helidda arrimaha isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinkan aad waxa weeye sheegto kadibna aad qayladhaanta arrimaha isbeddelka cimilada oo loss and damage funding leh iyo kharashaadka walaashay ayaan ba halkaa fadhido arrimaha climate finance wasaaraddu qaabilsan muddooyinka dambe carbonka intee in leeg baynu carbonkan hawada ku jira laftiisa dakhli ka heli karaynaa waxyaabaha muddooyinka ugu dambeeyey ay xoogga saarayeen wasaaraddu qaybna ka tahay hormuudna iyadu ka tahay iyo xogta si guud marka laga hadlayo wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada qaranka maxay leedahay halkan waxaan si guud u sheegi doonaa siyaasadda isbeddelka cimilada oo ah ta ugu weyn ee lagu hagayo dhashayna waxaan ugu talagalnay ah qorshaha la qabsiga isbeddelka cimilada xeerkii maareynta deegaanka siyaasaddii deegaanka qorshaha ama raad reebka loogu talagalay in lagu qiimeeyo mashaariicda horumarineed environmental and social impact assessment iyo sidoo kale climate finance strategy qorshihii la qabsiga isbeddelka cimilada NAP NDC waxaasoo dhan waxay sanadka dhaweyd marka COP 30 joognay climate agendaha waxyaabaha xoojinaya dalkaagana u sahlaya inuu fundis iyo wixii loogu talagalay helo xoojinaya ka mid tahay waxaa kaloo socda national biodiversity strategy iyo national forest policy loogu talagalay arrimaha kaymaha sidee ee Soomaaliya haddii doonaysa in arrimaha isbeddelka cimilada iyo abaaraha soo noqnoqonaya iyo xaaladahan jira wax ka qabato maxaa loo baahan yahay qaranka wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda maaliyadda iyo dhammaan institutionska kala duwan Soomaaliya less than 0.1 bay ka heshaa fundiska dunida loogu talagalay taas markaa waa halka cadaaladuna ka imanayso xogaha iyo dhaatooyinka dalka laftooda aan mararka qaar akhriyeynin oo iyaduna u baahan institutioniskan laftooda mararka qaar contradictions marka haddii wixii ay noqdaan wax shaqaynaya la wada shaqeeyo waxay imanaysaa in halkii lagu talagalay la gaadho imika waxaa socda redensyo kala duwan oo dalka loogu diyaarinayo sidii financing ama kharashaad isbeddelka cimilada iyo khataraha wax looga qabanayo maalintii dhoweyd waxaa la ansixiyey mataqaana hindisa sharciyeedka arrimaha khataraha sanduuqoodii loogu talagalay si bulshada lagu waxa weeye gargaaro arrimaha isbeddelka cimilada marka wax laga qabanayana dee wax furan mitigation iyo adaptation si guud baan intaana uga bixi doonaa institutionska muhiimkay tahay in dee xoogga arrimahan dalka ay gaadhsiiyaan wasaaradda deegaanka wasaaradda maaliyadda iyo sanduuqa loogu talagalay arrimaha dhaqaalaha isbeddelka cimilada climate justiceku waxaan ka hadalnay maadaama Soomaaliya tahay 0.019 waxa ugu yaray isbeddelka cimilada ku darsataa dhibaatooyinkii iyo khatarihii dee nolosheenana ay qayb ka tahay marna aynu ka cabaadayno abaar marna inaynu fundingka ugu wanaagsan ee arrimaha isbeddelka cimilada noocyada kala duwan taas marka waxay keenaysaa in climate finance-kii lagu xidho peace and security building-kii marka mashaariicdeena in xoogga saarno adaptation projects dhalinyarta kala duwan laftoodu inay qayb ka noqdaan nama soo socda muuqaal yaro kooban arrimaha bal climate justice kusuu yahay waxaasaan
You know what justice is. What about climate justice? Watch this. Decades of fossil fuel use has caused a climate crisis. halkan aad ku fadhidaan dhalinyar badan dhalinyarta Soomaaliyeed dhan walba ay nolosha doorkeeda kaga jiraan 70% dalku waa dhalinyar iyagoo caqabadaha shaqo la'aanta iyo dhibaatooyinka iska jiraan haddana waxay dhalinyartu hormuud ka yihiin dadaalada lagu bixinayo sidii wax ka qabashada isbedelka cimilada qayb looga noqon lahaayeenna kuwa ugu muhiimsan markay noqoto xagga wacyigelinta arrimaha isbedelka cimilada wato arrimaha waxa weeye in iyaga dhexdoodu ay tababaradii iyo aqoontii xirfadii ay tahay mar walba la xoojiyo taas waxay keenaysaa xitaa iba fur fikradeed inay helaan in arrimaha cilmi baarista iyo dokumentariyo kala duwan oo dhalinyar badan oo kala duwan baa xirfadooda u adeegsada inay soo gudbiyaan waxyaabaha muhiimka ee loo baahan yahay arrimaha isbedelka cimilada ka hadlaya waxyaabaha kale ee lagu yareynayo khataraha isbedelka cimilada ah dhirbeeristii iyo wacyigii inay qayb ka yihiin sidoo kale inay qayb ka yihiin dadaalada lagu nadiifinayo mataqaanaa qashinkii iyo shaqo abuurkiisa markaa tusaalayaal baan soo qaadan doonaa iyo arrimaha wacyiga mataqaanaa advocacy-ga iyo arrimaha siyaasadaha si ay qayb uga noqon lahaayeen markaan ka hadlayno dhalinyarta barnaamijyada kala duwan dalka ka wada gaar ahaan marka la joogo magaalada Muqdisho dhalinyar baa muddo intaasoo sana imika jimco walba waqtigooda hura leader beach up clean exercise oo ah xeebta inay nadiifiyaan muddooyinkii dambena waa dareemaysay in dhalinyar kale oo arrimaha social media ku jira ay barnaamijyadan loogu talagalay wixii lagaga qaban lahaa qashinkan iyo dhibaatooyinkiisa dadka lagu bahleeyo taas marka waxay keentay iyaga laftoodu inay iftiimiyaan khatartan dadka wacyigoodii xoojiyaan dadkii dhalinyarta ka qayb qaataan taas markaa waa keentay xitaa in magaalada dhexdeedii hooyooyinkii ka shaqaynayay iyo la caawiyo markaa qof walba dalkiisa inta ugu yar adigu aad qaban kartaa waxyaabahan anugu barmoodgarin waxaa ka mid ah environmental friendly workshops marka la qabanayo iminka imisa caagado plastiga halka soo saarnay maanta inaga lafteenna contribute garayna marka mar walba in lagu dadaalo waxaan isticmaali jirnay hoteelada inta badan inaanu kala talino in caagadahan lagu talagalay bambinka qof koob la soo dhigo biyaha marka la yareeyo bal emission cut-ka dhibaatan plastiga laftiisa maadaama caagadina waxay tegaysaa un xeebteen iyo dhibaato waxay keenaysaa dhalinyar kale oo arrimaha ka shaqeysa sogba arrimaha wacyigelinta isbedelka cimilada peace buildingka climate peace and security-ga oo iyaguna shaqooyin ka wada sidoo kale badbaadi baradaada tiimkaas oo jaamacadda Hargeysa habla ah oo markii kuliyadda deegaanka ka baxeen wataqaana innovationist ama hal abuur recyclingka laftiisa caagadahan ay farshaxan u bedeleen in iyaga laftooda dib loo isticmaali karo dustbinna ka sameeyaan baradoodna grants aan kala shaqeynay sidoo kale action for environment oo ah arrimaha iskuulada iyo wacyigelinta qaybka EcoHub oo iyaguna platform arrimaha innovationka iyo dhalinyartu bal meeshii ay isku wareysan lahayd dhalinyartaas qayb ka yihiin iyo urur kale oo la yidhaahdo Somali Women Environmental Climate Change oo iyaguna inta badan shirka isbedelka cimilada hablaha iyo waxaas oo dhan qabtay shaqooyinkay qabtaana waa kuwan marka laga hadlayo dhalinyarta saan ognahay dhalinyartu dadaalay wadaan laakiin dadaaladoodii intee leeg bay funding loogu talagalay heli karayaan dalkiiba baynu arkaynaa oo lacagaha fundingkii dunida ka helaya yar yihiin laakiin si guud haddana in dee caqabadaha dhalinyarta la xaliyo platformska jira maxay yihiin halkan waxaan ku arkayay geedsoor ninkaas dhalinyartaas anigu jaamacadda waxa weeye ummadooda kuliyadda deegaanka in hal abuur farshaxan leh oo dhirta laftoodii uu shaqo abuur ka samaystay halku cid kale u shaqo tegi lahaa dhalinyarta noocaas in la barmood gareeyo waxyaabaha muhiimka bay ka mid tahay platformska jira dalka ee waxa weeye dhalinyartu qayb ka noqon karto Somalia Youth Climate Platform UNDP baa wada ururo badan oo dhalinyarta iyo qayb ka ah SCAP oo underbakja ah iyagana waxa weeye Somali Climate Action Platform ka platformada kala duwan ee jirana in qayb laga noqdo in dhalinyarta maalgelin loo sameeyo waxa weeye the future-kii ama mustaqbalkii dhalinyarta wax ka qaban lahayd deegaanka in la xoojiyo idinku iskaashataan wacyigiina korisaan hal-abuurada jira lafteeda qayb ka noqotaan Soomaalida wax tiraa daawanayo waa dalkaagii waxa ugu yar in adigu markaad caagadir sidaanad wadada ku toorin wacyiga haddii adigu ka bilowmo bulshadaadana qayb baad ka noqonaysaa wixii su'aalaa oo soo dhaweynaya aad baa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم دمان مقعي وسيب عيديد كما سنتهي شرحات في نظام السميسي marka loo su'aal qaba oo barsiishka ay soo laabtay muuqaal koowaad daawanay
waxaa ka mid ahayd lyricska noo shaday in droughts climate change-ga human man-made inay ahayn oo dadka bini'aadanka responsible ka ahayn oo wax dhaca inay tahay muuqaalkooda ku jirtay maxaa ugu baahanaa marka haddii inaan geedo abuurno oo waxaa sameyno hadda dalalka dariska ah Kenya ka mid ah waxay leeyihiin maalin la national day of tree plants in maalintaas geed la abuuro waxa soo raacaysa farq maxaa waaye waxa u dhexeeya in climate change-gu cimilada inay noo wanaagsanaato oo abaartaan dhicin floodiskan iyo droughtskan ay dhicin iyo geedaha treeska in la ilaaliyo maadaama hadda geedahan loo jaro jackal in dhuxul laga shido iyo waxaas ee natura khatar ku tahay mid labaad oo ah kulley waxaa ka socotaa wasaaradda isbeddelka cimilada deegaanka isbeddelka cimilada waxaa jirta mar hadda la diidayay bacaha plastic awareness badanaa samayseen waa arkay xataa hormuuda ka mid ahayd dadka qayb qaadatay inay dadka markii la wacaayo ogeysiiso maxayd bolosiya ma ka soo saarteen in waxyaalaha plasticka ah maadaama dad dhibaato ku yihiin deegaanka in maxaa la yidhahdaa la mamnuuco inteena kuwa maxaa la dhahaa sideena kusoo dhammaatay maadaama ilaa hadda caagadihii plastic weli la isticmaalo waa mahadsantahay aad u mahadsan tahay laba su-aaloodoo muhiima aad weydiisata dambaan ka bilaabi doonaa oo arrimaha ah bacda iyo balastiga maxaa uga meel yaalla wasaaraddu sidaa ogtay dee wacyi gelinta bulshada saad uba xusayseed markhaati ka tahay dadaal wanaagsan bay ka samaysay qodobka labaad marka laga hadlayo dee siyaasaddii maareynta qashinka oo iyaduna ah waxa ugu weyn ee lagu hagayo siyaasadda maareynta qashinka markay wasaaraddu diyaariso fulinteeda iyo ka shaqaynteeda waa in waxa weeye dowladihii hoose iyo dee maamulkii gobolku qayb ka noqdaan waayo haddaan wada shaqaynta la abuurin dowladda hoose iyo waxa weeye wasaaradda deegaanka keliya taa wasaaradda deegaanku ma mamnuuci karto arrimaha qashinka bacda lafteeda marka dadaallo fiican baa arrintaa ka socda waana mid ka mid a wasaaraddu waxay jaanguysaa siyaasadaha siyaasadihiina siyaasaddu waa diyaar laakiin in la sii joogteeyo oo wada shaqaynta iyo jawiga ah in arrintan laga wada howlgalo oo waaxda qaabilsan arrimaha wacyigelintu sii xoojiso siyaasadiha laftoodu dalku imise siyaasadood buu leeyahay institutionskeena siyaasado qurux badan oo wanaagsan oo lacago badan ku baxeen xeerar baa la leeyahy laakiin maxaa caqabadu tahay fulinta lafteedin dee waxa weye la xoojiyo dareenkaana la lahado waa muhiim cidda marba hoggaanka haysa ku yara sax ee wasaaradda deegaanka si guud baan strategic thinking ahaan u caawiya waxaan ka tirsanay xafiiska ra-iisul wasaaraha arrimaha isbeddelka cimilada iyo deegaanka wasaaradda marka anigu qaabilsanahay in mataqaanaa shaqooyinkeeda si loogu talagalay ma wadaan marka cidda la xisaabtamase lafteeda su-aashaa lafteeda waan sii dabageli doonaa oo waxa weye waxaan u taaganahayba waxaad dalka u samayseen iyo waaqicigeedii loogu talagalay halka socdaan marka laga hadlaya arrimaha dhirta dhirtu waa waxa ugu weyn haddii dhir badan la abuuro oo barnaamijyada muhiimka ah ee dhirtu ay qayb ka noqonayso kow yareynta kulaylkii xaddaafkaha iyo kale soo jiidashada roobka marka markastoo deegaan nadiifa oo cagaaran la helo oo markastoo roobkaagiina wax iska bedelayaan laakiin halkeen ka taaganay waxyaabaha aadka ula yaabkaan arkay waxaa ka mid ah program waxaan leenahay imika la dhaho soomaaliya cagaaran markii aan kusoo biiray xafiiska waxyaabahan wasaaradda weydiya waxaa ka mid ahaa marka laga hadlayo in ambitionkan ama hadafkan la gaadho maxaa kow ka ah intee oo xarumood oo dhirta lagu kobciyo oo dadku heli karayaan baad leedihin marka in mar walba xarumaha dhirta la badiyo wacyiga dadkana la xoojiyo anigu waxaan ka yimid deegaanka waxa weeye marka hore mashruuca la qabsiga isbeddelka cimilada somaliland wasaaradda deegaanka consultant u ahaa waqtigaa ka hor waxaan bartaa anigu deegaanka barnaamijka somaliland ugu weyn arrimaha dhirtanka ayaan leeyahay ladhaa geed beer rajo beer one of the ambition youthku ay liidgareeyaan shaqadaa qabta wacyiga bulshada iyo dhalinyarta qaybka ah iminka dhalinyar kalaa ku shaqaysa oo platformkii u banaanay annaguna de waxa weeye inaanu bal aqoontii xirfaddii aan lahayn meelaha kale wax laga qaban karayo ay qayb ka noqdaan waa muhiim marka laga hadlayo dalalka jaarkeennu dhirta in la beero iminka etoobiya intaan la soo qaadana waxaa jira program la green legacyga dhaxalka cagaaran programka la waxa championin ka ah oo hormuudka ah abi ra-iisul wasaare taas markaa waxay keentay wax qofkii ugu sarreeyay dalku uu ka yahay championin intee in leeg baa la dhiirigelinaya laga shaqaynaya marka innagana marka laga hadlayo barnaamijyada noocaas waxay u baahan yihiin championin iyo hadaf dhab oo lagu xaqiijinayo intaasoo dheera in lagu beero aad baa u mahadsantay